waxay sheegeen in dowladda federaalka Soomaaliya looga baahan yahay inay xal u keento dilalka soo badanaya ee bajaajyada lagu hayo rajaynayaa inaan ka qayb qaato sidii loo horumarin lahaa nolosha dadka qaxoontiga ah waxaan rajaynayaa inaan xal u noqon doono oo aan u raadin doono dadkaas sidii heerka noloshooda loo laakiin bajaajkii aan u qaylinayna haddana bumbutuura ciidankii oo meel fadhiyo ku ridaaya nin bajaaj 3 bajaaj la qabtay oo bumbutuura soo ciidan meel fadhiyo ku ridaaya maxaa sheegay wax ku leeyahay shacbiga u hadlay aamus wax wala baatay waxa loo keenay aamus idageyso doqoyo waxaan rabaa marka waxaan wala taageersiin maxaa yeelay dawladdan dawlad fiican weeye aan madaxweynaha ka ahay dawlad nadiif ah weeye dawlad ammaanada ilaalisa weeye aan tuuga ahayn dawlad cadaalad ku dadaasho weeye dawlad aan qabyaalad iyo qabiil aqoon weeye dal burbursan muddo 3 wata oo argagixisada ay ku soo dhuumanayaan magac naga haleen maayaan gacan biras ka qabanayna ha u dul qaadanin dawran kale ndawaaqa mawqaay ma quradi diyo kaay wixii diilo kaay ndadir ku intaan diwan dukeena difaacani daliya